sida aabeed dhaqan u ahayd waxa uu inta badan xilliyada salaada ii kaxayn jiray masjid yar oo xaafadda u dhow. maalinkaas midab gaara ayay ii lahayd, maalmahana way iiga duwanayd. salaad casar ayaannu ka soo baxnay aniga iyo aabe. wuxuu igu soo leexiyey meherad yar oo shaaxa laga cabo, sheekana lagu wadaago. rag badan oo aabe saaxiibadiis ah ayaannu fadhigooda soo dul istaagnay. salaan iyo gacan isgelin kadib soo dhoweyn qurxoon ayay ii muujiyeen raggii meesha fadhiyay. wuxuuna aabe ii sheegay in ay dhammaantood adeeraday yihiin. adeerkii dhanka bidix iga xigay ayaa gacanta i soo qabtay oo dhinaciisa ii soo jiiday. magacayga ayuu i weydiiyey. markaan u sheegay ayuu misana su'aal kale i weydiiyey. qolo ma tahay sheeg qoladaada maxaa xirigle fariid nin dhalay nin raga adeerada sida u bara dadkaaga soo baraya fariid baad guriga markaan joogo dhagahaygu way maqli jireen magaca qabiilka aan ahay. waxay samaantay ii ahayd markii ugu horreysay ee afkaygu ku hadaaqo xuruufta uu ka kooban yahay magacaasi. waxaa ii muuqatay in aabe iyo saaxiibadiisba ay ka farxisay jawaabtii aan bixiyey. maalintaas waxaa lay dareensiiyey in su'aasha lay weydiiyey laftarkeeda qiimo weyn ugu fadhido qofnimadayda, oo ay muhiim u tahay aayahayga nololeed iyo ogaalkayga qofeed. sannadooyin badan ayaan la noolaa talooyinka tolkayga, noloshayduna ahayd mid mar walba cuskanaysa tiir ay iyagu ii taagayeen. dugsi sare ayaan dhameeyey. waxaan dalka dibaddiisa ka helay deeq waxbarasho. deegaankayga iyo dalkoo idilba dibaddan uga soo baxay, balse ma dareemin inaan xitaa wax yar ka soo durkay tolkayga. dhawaqa ay weli dhagahaygu maqlayaan iyo codadka iga daba imaanayaba waxay weli ii sii daadihinayaan dunida qabiilka, waxayna xoojinayaan xiriirka aniga iyo reerkayaga naga dhexeeya. garoonka diyaaradaha haddaan ka soo degayba waxaan dareemay inaan laba qof ahay oo laba weji wato. weji wuxuu ka turjumayay dowladnimo, xiriir dowladeed ayuuna xoojinayay. waxaan uga soo gudbay oo ku soo gooyey xuduudihii dalalka ee aan soo dhaafay, ilaa uu maantay iga gudbisiiyey garoonkan askartii ka howlgalaysay. wejiga kale wuxuu ahaa mid reernimo u taagan oo xiriir qabiil xoojinaya. saaxiibadii garoonka igu soo dhoweeyey ee saacadaha badan bannaanka ii taagnaa ayaa xiriirkaas xoojintiisa saldhig u ahaa. maasha allah inaan kasoo tago marabin maane waxbarashadana ay soo wadaniyo kusoo dhow dalka masar inaadan macaane waxbarashada ilaahay kuu fududeeyo. wax walba oo aad dalka masar kaga baahatid inaad dalkaaba ku joog waxbaa ka welwel insha allah. inaadan mahadsanid horta waa filay waan rajeynayaa inaa intaas inka badan ii qabanaysid waana ku faraxsanahay. aabaa isoo wacay. okay bal aaba ka qaba insha allah waan kusoo noqonaya. halo aabe.
هيا أبو وعليكم السلام. حسين أبو محوري إذا بالله ما نسوي هذا. ما شاء الله ما يدبلن آه وريك لما مشى بيسوي الدقيق ما شاء الله وارن له فرحه ماشي حلوة كان الله. maantay markaan xafiis dowladeed ilinka u istaago waxa kaliya ee la weydiinayaa waa aqoonsigayga dowladeed kii dib ii cesha iyo kii daryeel caafimaad ama mid waxbarasho i siiya aqoonsigaas buu cuskadaa. saxiixa dowladayda subaxdan u baahdo waxaan u jarmaadayaa safaaradda dalkayga. baasaboorkayga boorsadii aan bila ka hor ku tuuray ayuu ku jiraa. igama dhuunto ima buriyo oo iskama kaybari yeelo. isagu mar walba waa aniga. meel walbo aan ula jarmaado wuu imatalaa. aniguse mar kasta isaga ma ihi. maalinkan doono ayaan beddelayaa. si walboon isaga u beddelo oo aan aqoonsigayga dowladeed uga maarmo waxaa keliya ay aan beddeli karin waa ahaanshahayga qabiil. magaalo weyn iyo bulsho kala duwan ayaan maanta la noolahay. waxaanse weli ahay tuuladii yareed ama magaaladii koobneed ee ay reerkayagu deganaayeen. yaanan ku dhalan magaaladaas amaba ku korin. meel walbo aan ku dhasho iyadaan u dhashay. cid walbo aan la dhashana reerkaygaan ka dhashay. saaxiibkaygii uu qalinkuna mideeyey isma naqaan maantay. ma aanan moodin in xuduudda saaxiibtinimadayadu ku ekaanayso intaas. qolkii yaraa ee aanu qalinka ku kala qaadan jirnay sannadooyinka badan maanta kuma aanu jirno. mid walba qaran gaara iyo qabiil gooni ah uu yeeshay. macallinkayagii dugsigu nooma uusan sheegin in aniga iyo saaxiibkay qalimaantayada iyo qoraalkayaga uun isu eg yihiin, balse qadar uu qabiilku noo qoray qofba ay meel ku qarin doonto. qalinkii aanu kala qaadan jirnay iyo xuruuftii aanu bugaagtayada ku wada xariiqi jirnay nooma aysan tilmaamin xuduudda saaxiibtinimadeeda aadka u gaaban iyo harkaha jilicsan ee isu haya. waxaan maantay helay oo hantay saaxiibo badan oo kalsooni iyo kalgacayl ii muujinaya. isma aanu aqoon, weligay isma aanu arag. kalsoonida iyo jacaylka degdega ah ee dhexdayada ka abuurmatay kulankayagii u horreeyayse wuxuu ii caddaynayaa in aanu weligay isnaqaanay balse aanu kala lunsaneen. waa kalsoonida iyo jacaylka uu qabiilku abuuro.
qabiilku saaxiib aad muddo isku lamaanaydeen wuu idinkala fogeeyaa mid aydan muuqaal iyo ismaqal aqoonna wuu idin mideeyaa alla qabyaaladay maxaad qaamuuska xiriirka iyo xubbiga falsafad cusub ku soo dartay qabiilku saaxiib oo kaliya ima doorin dareenkayga caashaq iyo damacayga dumar xitaa isaga ayaa ii dooray deeqadii aan jeclaaday qalbigaygu dookhday isaga ayaa igu diroo iga didiyey maalinkan aabbe u sheegay in aan deeqo jeclahay oon rabo inaan guursado isaga oo qaylinaya ayuu igu yidhi idhagayso xuseenow may maqlaysaa may maqlaysaa aabbo nin fariidoo kartida baan kugu ogaa horta annagu reerkaa isma geyno oo isma guursanno aabbow tolka ceeb ha u soo jiidin gabar nasab ah oo la yaqaano noo keen aabbow aniga hadalku waa iga nayahay aabbo ereygaas mar dambe ha igu soo celi
waa maalin kaloo noloshayda maamuus gaara ku leh. waa khamiis, jaamacadda ayaan joogaa. waxaannu u soconnaa inaan 10 qaybeed soo qaadanno. caawiyaha digtoorka ayaa koox noo kala qaybiyey oo qolo walba qol gaara ku ballamiyey si uu noogala niqaasho casharkii uu digtoorku talaadadiina siiyey. caawiyuhu markuu qolkii soo galayba faahfaahin isagoon gelin ayuu sabuuradda noogu xariiqay su'aal uu ku tilmaamay in ay mug weyn tahay, muhiimna u tahay in uu ruux walba isweydiiyo. cid gaara uma xil saarin ka jawaabiddeeda, xor ayuu ka dhigay. ardaydii aannu isla fadhinnay dhammaantood gacanta ayay wada taageen. anigase su'aalo kale ayaa maankayga ku wareegaya oo waxaan ku hayaa goormaad qaadatay casharka ay su'aashani ku jirtay. talow miyaad maqnayd? waxay ii ahayd markii ugu horraysay ee aan su'aashan arko. hadba arday ayaa su'aasha ka jawaaba. mid walba magaciisa ayuu sheegaa, markaasuu jawaab kooban bixiyaa. sida ay magacyadoodu u kala duwan yihiin ayaa jawaabaha ay bixinayaanna u kala duwan yihiin. si gaara ayuu caawiyuhu aniga ii beegsaday. waxaan arkay su'aashii oo ii kortaal iyo caawiyihii oo indhihiisu igu dhegagsan yihiin. haddaan ardaydii hore jawaabahooda ka qashi lahaa, midkaan jawaabtiisa xado garan mayo. magaciygii ayaan sheegay. ma garanayo waxaan ku daro. indhaha ayaan hadba dhinac u leexiyey. macallinku isla su'aashii oo qaab kale u dhacaysa ayuu igu soo ceshay oo igu yidhi, waan ogahay in magacaaga xuseen la yidhaahdo. xuseen yaa waaye, isqeex. indhaha ayaa weli ii taagan aniga. maankaygu waa guuxayaa, mase garanayo jawaab aan bixiyo. mar saddexaad ayuu caawiyuhu ila hadlay oo ii yidhi, xuseen, su'aasha ma aadan fahmin miyaa? anigoo yara xishoonaya ayaan ku idhi, maya waan fahmay, ee jawaabta ayaan garanayn. cabbaar intuu ii jeeday ayuu igula hadlay cod ay ka muuqato niyad jab oo wuxuu igu yidhi, haddii aadan jawaabta garanayn waxay ka dhigan tahay inaadan garanayn qofka aad tahay. casharkii ayuu horay u sii galay. ereygaas oo caawiyuhu hadalka igu soo xiray ayaa maankayga guux badan u diray. waxaan maantay ogaaday qabiilku inuusan dad oo keliya iga fogayn, balse uu aniga iyo damiirkayaga na kala saaray oo midba gaar u siibay. intuusan qaran iga lumin, qofnimadayda ayuu iga takooray oo wuxuu iga soo reebay qalfoof ku shaqaynaysa aragtiyo iyo ogaal aysan iyadu lahayn. wuxuu iga baabi'iyey ruuxdii iskudayga ahayd. wuxuu igu beeray inaan rag kale iyo reer isku halleeyo weligay.
jiritaankaygii qofeed, kartidaydii, maankii furnaa iyo mas-uuliyaddii weyneed ee qofnimadeyda saarneed intaba waa iga lumiyey. mar walbo aan dunida aqoonta ku durko waxaan u sii dhawaadaa ahaanshahayga qofeed. waxaan dareemaa insaaninimadayda. dhiganayaasha dhex yaalla maktabadaha iyo meelaha ogaalka kubcisa markaan booqdo waxay ila mid tahay aniga oo noloshayda booqday. aniga ayaa isla faqa, aniga ayaa isla ballamaa oo maalin walba isbooqda. weydiismada kumaa tahay ma oran karo maantay jawaab 100% sax ah ayaan u helay. waxaanse ilaawi karin inaan ku baraarugay in ay ka duwan tahay tii ay adeeraday iyo aabbahay afka ii gasheen oo muddooyinka badan lagu soo abaabilayay. waxaa qiimo weyn iigu fadhiya in aan maantay anigu is helay oon hubsaday mar walbo aan qoladayda ku dhex milmo in aan qofnimadayda marti ka noqonayo.